وجورك ولا يهي فإذا جورك ولا يهي معها 10 إيا 2 إيا واحد لو سو كوبي كرو وأجندة وين أو باهن runtii aad in loo eego si fiicanna maaragtay loo daraasayo laakiin waxaan rabaa inaan ka soo qaato dhowr qodob haddii alla idmo aan isleeyahay anigu way ii muuqdeen markaa fiirisi faa'iidada guurku waa ogtihiin wuxuu soo bilowday waqtigii nebi aadam calayhi salaam ilaahay abuuray waxaa loo abuuray isaga la abuuray kadib baa xawaa feertiisa laga abuuray si bini aadanku taram u yeesho dhulkaana dadka ilaahay caabuda ay ugu bataan ilaa maalintaa guurku wuu soo jiray wuuna soo socday dhinaca shareecada waa ogtihiin de guurka waa la amray oo fankixu maa daaba lakum min annisaa waa amar rasuulkuna waa xadiisihiisii waxaan soo marnay casharadeen hore ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu yidhi guursada aan idinku faan maalinta yowm alaakhir marka guurku waa arrin aada muhiim ugu ah bini aadanka lianna waxaa la rabaa waxyaabaha bini aadanku xoolaha uga duwan yahay waxaa ka mid a inuu ilaashado diintiisa inuu ilaashado nasabkiisa guurku marka waa baahida jinsiga ahayd ee adig kugu jirtay oo si sax u gudanaysa oo lagu fududeeyey inaad raadsato qof sax ah oo lagula ogyahay kuna ilaashatid nasabkaaga iyadana aad ku ilaalisid sharafteeda iyo qiimaheeda gabadha oo xaas ay kuu noqoto adiguna aad nin u noqoto halkaana uu ka dhasho ubad islaam ah oo aad korisaan iyo guri islaam oo shareecada islaamka ku dhaqmay sababtoo abuuristanadii hore ahayd wamaa khalaqtu ljinna walinsa illa liyacbuduun awalan qoysku waa inuu ilaahay caabuda ka bacdan uu adduunka wax kusoo kordhiyo ubad kusoo kordhiyo qof islaam uu sii dhiso qofkaas qof islaam sii dhiso si islaamku uu maalinta dambe isu daba socdo marka qofku markuu guursado oo uu si saxa uga baxo khaladaadkii suuqa ka jiray oo hawadiisii meel xalaala ku shubo oo production sameeyo sababtoo production bini aadankii baa yaa halka ka soo baxaya jiilba jiil buu bedelayaa nasabkiina uu ku ilaaliyo qofkaasi wuxuu fuliyey amarkii allah wuxuuna raacay sunnadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh qodobkaas marka aada u muhiim u yahay qofku inuu guursado waa dardaarankii rasuulka waana amarkii allah subxaanahu wa tacaala marka qofku markuu guursado wuxuu fuliyey amarkii rabbi iyo dardaarankii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ka qayb qaatay badashada ama kordhi ama taranka islaamka wuxuu ilaaliyey xawadiisii wuxuu ku ilaaliyey weel xalaala wuxuu ku talagalay inuu abuuro qoys islaama oo production marka qodobkaas aada u muhiim u yahay ha la ogaado in la iska guursado iyadoon waxa loo guursanaya la garanay waa wax aada cajiib u ah waa ogtihiin qofku markuu rabo inuu shaqo qabto shaqadaas positive iyo negativekeedu sii daraaseeya markaasuu galaa guurka ayaamahan inagoo kolley tegi doona casharadan soo socda haddii alaydmo oo fahamka qoyska aan aada arrintaa ugu falanqayn doono aada u muhiim wuxuu ugu yahay qodobkaas in qofku maskaxda ku hayo markuu guursanayo inuu fulinayo amarkii rabbi iyo dardaarankii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh labo qodobka labaad ee faa'iida guur ku jira waxaa waaye deganaan iyo qanaaco qofku markuu soo barbaaro ilaa markuu dhasho wuxuu ku jiraa tiim ama koox buu ka tirsan yahay ilmuhu markuu dhasho faamiligu ka tirsan yahay guriga markuu arday noqdo oo dugsi qur-aan tago dugsigaas wuxuu ka samaystaa group oo la sheekaysto oo ay isku emotion yihiin oo isku dareen yihiin oo isku fikir yihiin markuu sii weynaado jaamacad iyo u gudbo meel cilaa ma taagna marna isolated maaha dad buu ku xiran yahay dad buu la sheekaystaa dad buu la socdaa okay marka qofku qaan gaaro waxaa imaanaysa baahi jinsi ah baahida jinsiga ah marka hadduu si saxa qofkaasi u gudan waayo oo uu meel ku gito waayo rag iyo dumarba waxaa ka maqan deganaanshaha iyo qanaacada labadooda ka maqan yihiin raggu inta badan fiirin ay bilaabaan gabadhii soo hormartay eegaan nin shaydaan la yidhaahdo haddee asagu dee shaqada iska laho dee wax walbo qofkaas soo horma u qurxinayana dawaabi jira oo habeenkii aad guursatana naxaya habeenkii aad siniisatana ku farxaya marka qofku markuu guursado deganaan iyo qanaaco helaa wuu qaboobaa oo wuxuu og yahay
shahwadiisii iyo kulaylkii jinsiga hayay meel ku guto inuu helayo. labo nafsadiisiina qabow baad iyo dareemaysa sababta qof uu jecel yahay oo uu doortay oo uu maaragtay dadkii kala dhex baxay ayuu haystaa. gabadhuna sidoo kale waa wiil iyadu dooratay oo dadka kala dhex baxday ayay haysataa. marka labaduba qanaaco iyo deganaan ayuu u kordhinayaa oo guurku qofka wuxuu keenaa qanaaco iyo deganaan inuu helo. waxaa ogtihiin ama laga yaabaa inaan ku baraarugsanayn guurku wuxuu dawo u yahay cudurrada neerfaha iyo frustrationka iyo buufiska wax dadku u yaqaan. waxaan aragnay dad fara badan oo ama meelaha lagu xiray dadka waalan ama si kaleba u xanuunsanaa oo maalintii maxaan ku yidhaahdaa uu loo guuriyey degay oo mas-uuliyaddii reerkiisii iyo gurigiisi si fiican u dhaqanay. sababtoo ah qofku hadduu fekero ousan baahida jinsiga ah gudanin caabuqu nafsiyaa ku dhacaya, maskaxdaa wareeraysa, xidada dareenka kacaya. waxaa weeye qofku u yimaado si kale ula macaamilayaa, shaki iyo buufis iyo waxaan jirin baa ku dhacaya. sababtoo wuxuu isleeyahay ummaddii wuxuu u baahnaa jinsigii baa dhibaya. markuu jinsigaa helo qofkaasu waana aragteen baan filaya dad badan ama daroogo cuni jiray ama si kale maskaxda uga xanuunsanaa rag iyo dumar bale oo markii ay guursadeen qaboobayo reerka si fiican u dhaqanaya. marka guurku waa daawo, deganaan iyo qanaacana waa leeyahay. marka qofku markuu guursado faa'iidada labadu helayo waa deganaan iyo qanaaco nafsi ah oo damaaniina ay qofka